guys, assalamu alaikum. Setiin وانا بكون حاوا سو دوادا امر الحاس family video عصوب كسو دوادا انا نكون حيسي مرة فيديو مصممين اوغاي vlog هانت دو سو توبناي so we are back الحمد لله اسكت قانين شيكد هالعنوغي اهات هدا لبا نقدان اني اول وكفونا وكعونا ما فهمتين so ان شاء الله حسكو دينا سيدا وناكسنا سمين كرنا سمينو فيديو دينا كوكسو قلينو ان شاء الله so okay guys video waxuu ku saabsan yahay on kaga hadlaya best C-section ama qaliinka ee hooyada ku dhasho C-section la dhaho su'aal badan ay soo weydiiseen waxaan sameeyay su'aaliya qoray ilaa 7 qodobood arba inaan ka hadlo 7 qodob ugu muhiimsan isleeyahay because of su'aalaha iska badnaan bla 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 faham laakiin 7 su'aalood aan isleeyahay inay ugu muhiimsan yihiin asoo qaatay ساش ugu horeysa ee isoo weydiiyay waxay ahayd xaawo qaliinka wax fiican miya mise wax xun waaye yani qofku markuu qaliin galo qofku markuu qaliin galo naaga camal miya yani wax ma qabsan karo ma socon karo waxa yani shaqada guriga laga ilaaliyo cunugga laga ilaaliyo sax miya mise so su'aashaas jawaabteeda hadda idin siiyo aniga ka maamo ahaan oo laba qaliin martay sax ma aho qaliinka جود أهان إنه في عين فيهم كلا لكن قليل كمركز جشت كذب يعني سيدي هذا طيب فهمتين الحمد لله يعني نورمال تاي شغلة على قبسن كرتا جوريجا المها جواهي سن كرتا بس وحاسكيل على الناس لبض بالأول رئيس حاسكيل على الناس حتى أميرة حتى وسكيل لنا هنا قاعد فهمت علاس يعني أنت صلاك حتى وسكيل على الناس هنا قاعد مركز لكن لو بلو حكي دنبايو علاس علاس وحال علاس لسكيل على الناس waxyaabaha fudfudud laakiin waa qaadi kartaa shaqada gurigaaga waa qabsan kartaa waxaa iska ilaalinaysaa sidoo kaleeto duganaanshaha badan waa iska ilaalinaysaa qaliinkaaga markuu cusub yahay iyo because xanuunu ku keenaya saani arka kale so qaliinka ka bacdi naafamatiid waa shaqaysan kartaa gurigaaga iyo nidaamkaaga waa qabsan kartaa ilmahaaga waxaaga su'aasha koowaad waa taas su'aasha labaad waxaa dhahdeen mar labaad maxaa qaliin ugu dhashay oo isku baroomayso caadi ugu dhali weysay so aniga qaliinka horta sababta ugu dhala waxay tahay dhakhtarkii hore wuxuu dhahay qaliin mooye caadi ma dhali kartid mar labaadna sidoo kaleeto cunug labaad marka hadda aan dhalayna sidoo kale waxaa la dhahay qaliina ku dhalaysa so ani ahaan way jireen waxaa la dhahay macnaha mar labaad yani caadi ahaan waa isku baroobayn kartaa inaa caadi ku dhashid haddaa rabin qaliin laakiin ma rabi inaan nolosheeda nafteeda inaan halis geliyo ilmahaba sababtoo waxaa jira dad badan oo la dhahay qaliina tahay oo maxay ahato anay macnaha aqoon leeyahay amaba aan qasa ahaan maqlay ama dad aqoon leeyahay jiraan oo la dhahay qaliina tahay qaliin ku dhalay laakiin mar labaadkii dhahay ama ya caadi oo dhala bacdeen qolka delivery-ga aaday kabacdii la soo rafaadsaday caadi u dhali waayay kabacdina loola raro qolka emergency so maxaa isku rafaadina ترتيبته ما دام عادي مدلي كنت له ده قولك برجع ترتيب نظام اسكي قاعد ما فهمت قربلان ايش الدحيح اسوي دي سي وحاواي maxaa kula roona ay dhahdeen qaliinka ama caadi u dhashid taas simple waaye wax roon ma jiro hooy waa labadan babo xanuuna maraysa iyo shock iyo silac iyo rafaad alxamdulillah yani laakiin la soco labadaba isku mid waaye markuu ilaahay sas ilma ka soo saaro ya cabsida iyo xanuunka iyo wixii dhan waa laga qaadaa jabi caadi ku noqonaa ilmaha ku mashquulisa alxamdulillah ilaahay nimcadiisa waa fahamteen oo hooyooyinka ilaahay uu siiyay sas markii ilmaha laga soo saaro wallahi wax walba qalbigaasa loo siibaa cabsida xanuunka wixii dhan caadi noqonaysa so su'aasha afraad ay soo weydiisay maxaa farqiga maxay waqtiga u dhaxeeyay farqiga u dhaxeeyay Amiira iyo Alfiya yani waqtiga dhalay qaliinka hore qaliinkan farqiga u dhaxeeyay maxaa 2 sano just 2 sano iyo 11 bilood amar hadda iga saxay ma fahamtay kofiisa yar waxa u dhacay wareer ay dhacay so kay su'aasha shanaad daadin kaga jawaab su'aasha shanaad waxay ahayd dhiig maal ugu shubay sabto video delivery asoo sameynay amar waxa ka hadlaynay in la dhahay dhiig ay u baahan tahay in loo diyaariyo lacala hadda u baahan tahay in lagu shubo so dhiig leeguma shubin alxamdulillah ka gudbay taas ma fahamtay su'aasha lixaad waxa waaye sidoo ahaa experience-gaaga qaliinka koowaad iyo qaliinkan hadda okay neef qaato horta ko su'aashan
إنا كجوابه يعني صراحة أنا أوجوابه أنا مرة ما نربينا هذين كعبسي بس مهمين بدن أو قليل كنا لا دعوضه لكن أنا أهان قلينكي كواد وحوها وحبا مكوجين وحو قليل لده يعني قليل ما أوجهاي وما قلي لكن ولينا مطابنين من كبرها بحويهاي ما نصومرين لكن قلينك لبعض ما دام قلينك اوكي جايز تلفونك جيني يوردي وحير لبدان بر كاميرا مستعمالين فهمتين سو كاميرا waa ka guuray telefonkayga guuray asna waa buuxsan bay filna ay keen because waxaan qashin wixii ay telefonkayga ka buuxaan fahamteen so almuhim awar saydo maadaama aqirtay inaan qashin arursado okay so su'aasha shanaad ay ka jawaabay waxa waaye C section ka hore iyo C section kan farqiga u dhaxeeyay maadaama marka aan qaliin soo maray oo aan ogahay xanuunka iyo wax walba hadda aan ka warhayo aad ay igu adkaatay heer waxa gaaray cabsi waxa gaaray heer in aan yani miska ma orda xataa way qabad miska dhaafta waxaan miska dhaafta qaliinka intiis miska dhaafta hadana waxa dha kollab ilmi calaasha kuugu jira abada iska daysid abada iska dayninbo يعني وكود ضمبينا لهم فهمتين سو الحمد لله بلاقي لله اسكو ديبي قولك سيسكشن مرك قولك قلين كمرك اللي جاينا عبسيدي دك سيدرتي كله دكتور كحد عاد مرك أرك ولا قصلا اسكي قانا صوتو وانتو ياوي او ياو وحولها يا حوا او انا دكتور because of يعني عبسيدي حد كيك بحدا كنا كنترول كنا يقولوا ما يحب لا أنا قرآن قرأ آخريو أو يا مركا يعني قلين كوري قلين كان حتى هير وحجر عبسيدي درتي ذا فوبيك قاعدة وأنا عنق سدحات من الربي عنق سدحات من الربي أنا فهمتين because عبسيدي لا هرقة سيجارتي بس الحمد لله يعني sidoo kale qaliinkan waxyaabaha oo aan qaliinka hore arkin waxa kamid ahay daawooyinka walow same ahaayeen saa u maleynayo la isiinayay in daawooyinka aad ay waalayeen oo isbitaalka dhan aan nacay aan dibsanay xataa aan nacay daawooyinka dhan aad ay waalayeen yani heer waxa gaar daawada aad diido ma la duraayo oo laga daayay because ana dhan madaxa wareerayo nalka ay dhibaayo hadalka ay dhibaayo أنا نسي كان نقنا فهمتين مركا الحمد لله مقوينا كسو قد بي سؤال اللي حاد هدية أو قدبو ضد بدنا قبل بدنا قليل كوات صومرة أنا عمل عبسي كقبين ماشي مع الخلي مسمى الله هذا الخلي أنا حتى عبسي أسوي وجرتي مركا الحمد لله إسلام ماشي على الخلي ملا ضن ولا قليل مفهمت سبرتي ماشي عقلين كله حليه سؤاشة تضوات وحاوة ويديسين سونكا محرن كرا خلينك كتب أنا أهان ضد حيدها يعني أضحط لك قلساس محرنة مركا أنا بوجي أنا أهان دكتور كي هراي دكتور كهذا أو حرانة عبو لبضة بمركي فاشد اللي في قي وعنقري اللي بحيي اللي صدي check up الجو سمينا كمبيوتر أو صار ما فهمتين ودكتور كده وعافمت قطع الحمد لله سونكا حرن كرتها بدها ما فهمتين لكن markaan ani suunka ma xiranin number 1 inaan ka caajisanin okay no excuse so laakiin xilli horeeto waa xirtay yani ayo waa xirtay ma fahamteen laakiin had ma xiranin so almuhim todobadaas qodob arbina idin kala hadlo hadii aragtiin part 2 ina soo sameeyo oo su'aalo ay haystiin commentiga iigu reeba hada video ka shan please channelkeena subscribe saar like our video هنا share the level أصحابتنا and comment down below وإنه فيديو كله أنا قبل إن شاء الله bye guys